ayaa bam gacmeed ku dhuftay isaga oo meesha taagnaa ninkii cameramanka ahaa oo ninkan markay baabuurta ka tegay Mareykanka waxay sameeyeen kuwa wariyaal Soomaali ay tababarteen dhalinyaro iska ah shaqo kuma leh waxaan Mareykan shaqo kuma lahan wariyaashaas waa kind of embedded kuwa la dhaho embedded marka dagaalada loo diro oo warka soo duuduuba wey marka wiilkii markii jarankaan ay luweynayeen iyo saraakiisha dadka la socday iyo staafkiisii ayuu dhanka kale taagnaa iyo duubay kaamirada duubay at the sudden bam gacmeedka ku dhacday waad ka garan kartaa bam gacmeed qof ku ag taagan oo kugu dhuftay taasaa dhimashada ku dhacday wax miinada la aasay ma jirin wax cirka ka imaaday ma jirin ninkii saas buu ku dhintay wiilkii wariyaha ahaa kaamiradiisu duubtay in kaamirka laga qaadaa la ogaa laakiin madaxiisa xabad laga hela qoladii meeshii joogtay malaha oo nabad sugidda ahayd waran kuwaan kuu sheegay hadda ka mid ahaa wiilka kale waa la hayaa kii bamka tuuray kii wiilkii kaamirada duubayeyna ma aqaani kaamiradaas inay digital lahayd oo safaarada iyo meel kale ku xirayd ma garan kara laakiin kul alxaasil wiilkii kaamirada duubayay waa kii Mareykanka u tacsiyay wiilkii madaxa waa la dilay laakiin bamkaasna kuma dhicin qarax ma gaarin asoo caadi oo meesha taagan markii ugu dambeysay kadibna waa la dilay baa la yiri marka waxaan inside Java you don't need inaad al-shabaab iyo wax kale iyo sheedaan aad credit ku siisaan ninka dilkiisa al-shabaab ma sheeganin ma dilin shaqo kuma ilaha ninkan ma dilin bada ninka dilay waa askari waaba laayaaba ninka bam ku waxaan idin sheegay waa 100% the fact feere al-shabaab tan jinni dad baa credit ka siiya xataa waa sheegteen uma markaas la dhaw waxyaalo badan ayaga ayna sameyn ayaaba la dhahaa ayaga sameey marka ninkan askari Soomaaliyeed oo ciidanka waran ka mid ah waa Fahad Hebel Salaad baa xukuma oo arinta ka dambeeyay marka way qaraabo wiilkaas ama abtibi u yahay uma inaan basayl maadeerihi midkood anooyis aabood ma kala la midkood waa nin jibin ku dhow Hebel Salaad marka arintaas dhacday meesha meel cadow ma ahayn meel furan ma ahayn jarankaas markii kun askari dhimato buu dhima lahaa oo nimanka haramada he was not alone meesha meel ma ahayn laakiin waxa iska hayd waa adoo baar uba xamar joogo oo kale oo meesha lagu qaarajay amal saas oo kale baa sheekada ku dhacday just ma ahayn wax qalad oo isaga lahaa iyo wax precaution yacnaa uu sameeyay risk uu qaatay midna ma jirin marka arinta idin sheegayna waa 100% adogaada ma waxa biyo lagu dareeya maaha waa 100% wax galan u sheegna marka waxaa la madroomba sidee ku dhacday sidee dadka ugu horeeyay miinada u hormareen asaga dadku ka miisaan badnaa ila miinada waa garan karaa miisaan bay ku qaraxdaa remote sidee ku dhacday oo daa sheekada wax simple ah iska noqotay bam gacmeed ninka lagu dhuftay laguna dilay marka mid kale inaad waxaan idin sheegayaa dad annaga hadda wax baan haysta tash baan wada haysta Soomaaliya oo dhan tash baa haysta oo wax markay dhacaan aan hore ugu ogeyn inay dhici doonaan tomorrow inay dhacaan laga yaabo ma garan kara wax laga dhigi kara arintan qaraarka laga gaari karo qaraar adag waa in laga gaaraa we cannot go as usual damnimadan leeyahay madaxweynaha wax laga sheegay walow maam war waxaan waa dhaceen dadkan hore uu ogeey shaki ma ool ka qaban jirnay it's a proof waa dhacayaan elimination baa socota marka miska fiirsanaa saa in la dhaha ma ahan ilaahay baa og aniga meesha ma joogo sheekadana ku bugtaan wax Soomaali qarxiyo oo dhanbay waa la wada ogyahay marka yaan waqti ku luminin marna ha dhihina Xasan Sheekh hiista president asaga anama ku dhigi kara asaga amray ma dhahay asaga gacan ku leh qaroola maxaa lagu dilay adiga ma taqaana qaroola nabad sugid buu ahaa ninkan Fahad Yaasin gacan yariisu iyo kulane groupkaas waa few oo wax kasta oo xamar ka dhacayba haddana booliisna wuu ahaa
xamarna wuu joogay meesha wax laga karkariyo oo dhan every problem every crime oo dadkeena ka dhacay siduu Fahad Yaasiin intuu ogay laba jibaarkeedu u ogaa ninkaan shaqada laga qaadaa la damcay waxaa la yidhi khayr male baraka male ninkaan hadkayg buu noqday waxaan la laqi karin ninkaan waa dhalinyaro waa smart qabiil waa lagu dabaali waaye jaqjaq waa loo yeeli waaye shaqa haddaa laga qaada ma diideen ha laga qaada u dhihi lahaa nin shaqo weynaya uma ekayn ninkan waa laga yaabay iyo wuxuu og yahay ninkan lagu dilay wuxuu og yahayna waxa maanta dhacay ma ahana waa waxa saddexdan bilood iyo kasii horba waddankeena waxa ku dhacay ayuu og yahay ogaal marqaati life ayuu ahaa marka in la eliminate gareeyo waa high priority dad criminals oo xamar crime baa ka dhacay saraakiil badan baa gedigood wuu wada ogaa mara nabasugud buu ahaa mara haramacadkan buu madax buu ahaa waad garan karta waa jaranka booliiska xamar oo deegaanka dhan xukum wax kastoo xamar ka dhacay isaga wuu ogaa marka very high value buu ahaa nin lagu khasaaray buu ahaa laakiin ciidamada qalabka sida isma dhiibayaan kumanyaal kale ayaa jira oo soo baxaya we have to fill the position kaas waa in la buuxiyaa waa in Soomaalina godka lagu celin inay moralka ka jaba oo qoryaha iska dhigtaan oo ooyaan raba I don't want qof ooyo meesha inuu jiro ninkan wuxuu u dhaartay buu ku dhintay gobonimo that's it noloshiisa bilow iyo end bay lahayd annagana waa leedateen marka waxba apology ha ka dhageysan xasan sheekh immediately waa inuu shir qabtaa degdeg ah emergency group waa inuu waddankeena state of war waddankeena state of war ma ogtiin dagaal buu ku jira ninka ma jirta raggan mahad hebel inta wax lagu tuhmayaba they have to be step aside fire them ana ma ku dhahay maxkamad hadda la soo saaro ma ku dhahay ama la dilo ma dhahay hadal dawladeed ma aha taas laakiin nimankan shaqadan mana loogu talagelin kumana fiicna Soomaalina ma aaminsana ciidankeena ma aaminsana defeat baa nagu dhici doona haddii kale argagixisii yaran kala ceyrsanayna hadda jaa xamar qaar fadhida hiiraan waad aragteen gobolada dariska la xataa laba babalays garay arrintii hiiraan arrin qabiil baa laga dhigay hal bal xawaad la hal argaxabad laga garaacayeen kale waa lagu fiirsanaa darbiyada labada fadhiya waa dad wada daris ah muxuu yahay dagaalkaasoo dagaal dawladeed ma ahayn maxay dadkan darbiyada fadhiyo oon dagaalamayn oo nimanka argagixisada dabada la gashay oo dhahay wiilasheen hadda la qabto annaga ha noolo soo dhiibo kitaabay meesha la fadhiya maxay waxaas dadka enemiga oo dadka Soomaaliya gumaaday hadda la soo qabto ma odayaal meel fadhiya loo geynaya ayaga saasay bay dhahay sharci ka dhigtay annaga wiilkanaga loo geeyarabna hadii kale waa wax aan ognahay yaan entertainment ka u bedelin waxaan ognahay waad ogtahay odawaa waxa taagan waan wad ognahay maraaj waan ognahay muxuudiin waxa taagan let us move on yaa shabaab ah yaanan ahayn waxaa la leeyahay meeshan madaxtooyadii waxay leedahay shabaab baan la dagaalamayna hada shabaab horta madaxtooyada ka buuxday iyadaaba shabaabkii ahba sababtoo ah almasuur robow baa meesha jooga oo la leeyahay wasiir awqaaf iyo diinta weyn macnaha horta awqaaf iyo diinta macnaha ay dadkan islaamka ah oo Soomaaliyeed ugu fadhido yacni qiimaheedu ma istaahilaa almasuur robow in la yiraahdo diintii buu idin hayaa isaga wax ka dhageysta ninkii shalay wax qarxinayay dadka leeynayay wax suuqayay wax qarbudayay oo meel uu kaga tanaasulo aanan haynin baa la yiri isaga waa inuu idin laayo waa ku saxsanaayo diintana isaga ka dhageysta horta meesha horta waxbaa qaldan kan wasiirka gaashaandhigga ah ee TikTok shabaab buu ahaan jiray isagu shabaab buu ahaa fahmaysaa meesha ninkan hadda loo dhiibay sirdoonka hadda ninka dadkana dilaya haddana la leeyahay adiga baar anigu waa sheekadan macnaha isma keenayso marka xasan hadduu shabaab la dagaalamaya horta isagu waa is caddeeya isagu shabaab